السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا قالية مeel walba dunida ka joogtaan waa idin salaamsada dhantiin family iskaashi option traders so haddaa muuqaalkan ku cusub tahay fadlan aad youtube ka daawanayso subscribe saar like garee videoga la wadaag asxaabtaada si uga faa'iidaystaan mideeda kale haddaa kamid tahay groupka telegramkeena ee iskaashi option traders muuqaaladii hore waa la socotaa haddaa ku cusub tahay youtube-ka ka daawanayso fadlan si aad u hesho muuqaaladii ugu horeeyay videoyo badan aan soo sameynay basic so linkiga wuxuu yaalaa telegramkeena commentiga ugu horeeya ama description-ka ku dhufo automatical waxaad tegi doontaa groupkeena halkaas oo kaaga horeeya dad suuqa in badan ku jira maasha allah soo dhawow muuqaalkan ayaan guda gelaynaa maanta waxaan baranaynaa 5 minute time frame so period candle time periodka waxaanu ahay 1 minute aan ku trade gareynaynay so waxaan isticmaalaynaa 5 minute time frame wixii adiga comments ama labadaba midda fiican commentiga noogu soo qor haddaad kamid tahay groupka telegramkana noogu soo dir fariin ahaan groupka kaga soo hadal midii faa'iido badan tastigaray gacantaada ayaa muhiim ah inaad wax walba ku fahanto okay hadda waxaan dhiganaynaa seeladihii aan suuqa ku cabiraynay so inta ka dhiga 1 minute ka meesha 5 minute ka dhigo 5 minute time frame candle period isticmaal okay suuqa zoom out iska dheh si aad u ogaato xaaladdu marayo suuqan waa suuq kor usii kacaya hoos ka soo kacay okay meesha ugu hooseysa noo dhig horizontal line keena okay waan dhiganay and then meesha levelka ku xiga noo dhig another horizontal line. This is a level here level intana level inta level aan ka hayaa so horizontal line ka dhiganayso one level hadduu kuu qabto kaliya fiir hadda kan oo kale hadduu one level kan kaliya kuu qabto that's wrong level iska ilaali level qaldan inaad dhigato hadhow inuu ku qaldaa laga yaabaa so raadi level labaad ku cabir ah so intaan dhigtay one level two level oo u haya level saxan waaye so meeshan waa dhowr mar meel laga celceliyay okay meesha ugu sareysa noo dhig lineka anaga istaraatiijiyada isticmaal waxaa lahaa yani breakout strategy lahaa suuq jabsashadiisa ayaan ku cabiraynaa then fursad ayaan ugu faa'iideysanaynaa candleka okay meesha hadda laga soo celiyay noo dhig horizontal line meel kasta laga soo celiyo suuqa adigoo gadaal kasoo fiirisay meesha uu maraya haddii laga celiyay line dhigo so waa level oo hadhow dib ugu laaban doono suuqa okay hadda aan fiirino waa kana fiiri suuqa meesha ka jabsado waa inta level kale waa levelka aan dhigina waa inta level sax waa muujeeda suuqa waxa waaye meesha uu soo dhaafay level la siman ayaa laga celinaa kor ha loo celiyo ama hoos ha loo celiyo okay this trade wuxuu egtaa inuu dib u laaban doono so intan waa big level suuqa ka laaban karo intana waa level suuqa laga celin karo so wait 2 minute ayaa ii dhiman suuqan haddii aad trade gareyso lahaw taxadir lahaw so waa dangerous okay hadda waxaan sugaa halkan in uu taabto wuuna taabanaa saacadaha ugu dambeeyo candlekan sel ayuu kusoo socon doonaa levelkan ayuu taaban doonaa so ogow candle walbo oo sel ah hoos u socda waxaa celiyo level candle buy weegiisa ayaa celiyo so candlekan hadda buy waaye laakiin saacadaha ugu dambeeya sel ayuu noqon doonaa halkan ayuu taaban doonaa say u eg tahay levelkan asoo tegin ma laaban doono okay mideeda kale candle walba sel ah waxaa celiyo candle level ama candle
wiigiisa yahay buy. candle walba buy kor u socdo waxaa celiyo candle wiigiisa yahay sell. so hadda candlekan hadduu sidan sii ahaado confirmation waxaa haystaa buy aan usii raaci karo next candle. so candlekan wuxuu noqday reversal candleska, candlada suuqa kala wareejiya. so at least saacadaha u dambeeyo inuu daciif noqdo ama sell inuu sameysto meeshan soo taabto ama sidan inuu ahaado oo candleka sidan ku dhamaado. marka confirmation waxaan haystaa next candle in uu noqon doono buy. haddii meeshan ii taabto leenkaane waxaan confirmation haystaa next candle in uu noqon doono buy aan cabsi lahayn. okay, aan isla daawano trade-ka. xoogaa waqtiga aada u badan yahay trade-ka aada sugayso inaad profit qaadato. xoogaa 5 minute waqti xoogaa adiga saas aan u badnayn waayo, laakiin waxaa muhiim ah in aad trade-kaaga si quarantine aada ku wingareyso, si macnaha seriously. so hadda suuqan ku degdegto khatarteeda ayay leedahay. suuq waqtiga candle 5 minute-kan waa best profitable. anaa testi gareey, anaa isticmaal real account ku isticmaalay. so marka wax walbaba gacantaada ku baroobay. midda fiican aniga labadaba ii sameeyeen, midda adiga kula fiican iyo midda awooda leh adiga ay ogaan kara practicay. okay, waxaan sugaynaa next candle. next candle moving average wuxuu sheegayaa suuqan in uu sare usii kici doono, sare in uu sii kici doono. okay, okay, next candle waxaan u galnay buy. aan isla aragno trade-kan waxaa ka dhiman 4 minutes. waa waqti dheer. trade-kan oo candlekan hadda oo looska ku jiro hadhow waxaa laga yaaba selka inuu buy dheer noqdo. marka levelka suuqa uu raacayso iska fiiri. okay, aan sugno trade-kan resultiga uu ku dhamaado. five minute-ka aada ayuu fiican yahay. candleska speed kuma sameysmayo. marka haddii aad fahanto waxaa hubanti ah in aad profit badan ka qaban karto. marka qiimey aad evaluation ku sameey, ku trade gray 5 minute time frame. halkan 1 minute ka ahaa ka dhigo 5 minute time frame. 5 minute time frame adigoo isticmaalay haddaa suuqa non direction aad u raacdo you will be loose. so direction hadda candlekan salo ku socday loose ayuu ugula jiray. at least weegana u jeedaa weega macnaha candleka daciifkiisa waa meesha oo ka aariga qaato waaye. hadda gadaal u laabto meesha ul yariisa noqotay. candlekan sell ilaa inta ayuu ula soo gaaray. so adiga daawanayo waxaa isdhehaysa candlekan loose ayuu ku dhamaadan karaa boqolkiiba. adiga waa saadaalinaysay. at least hadda waa ujeedaa candlekii selka ahaay buy ayuu noqon karaa dhaa inoo noqday u badan tahay macnaha iskama gelin. marka hadda waa kanaa at least levelkan suuq ilaa levelka laga soo celiyay ayuu tagaa. saasay u badan tahay waayo level to level waaye. waa garataa una maleyna.
so hadda at least 2 minutes aa ii dhiban 2 minutes ayaa ii socda halkan wuu taga okay hadda 2 minutes ayaa ii dhiman 2 minutes ka hadda at least inuu gabagabo marayo eg tahay okay 1 minute so haddii aad direction fiican u fiirsato suuqa adigoo macnaha suuqa level fiican uu gaaray isleh levelka aad u fiirisay suuqan dib u laabasho sameynaa 90% kuula muuqato haddaad raacdo si direction u raacdo trade-kaas waxaa hubanti inuu ku dhamaan doono profit marka iska ilaali taxadir sameey so 5 minute kan aad ayuu u fiican yahay 1 minute ka kanalka speed ku sameysmaa waa aragteen marka at least hada tajanisa kan kanalka saasi ahado kanalkan duu dhaxda qaliir bud macnaha qaliir riis ku yareesh hada hoos u soo daciif hada dragon fly amal Allah kanalkan like the yurad amal u sameysan yahay so wuxuu kamid yahay reversal candleska suuqan haduu san si ahaado next candle wuxuu noqon doonaa I think buy inuu sii socon doono ilaa levelkan uu ka gaaro waxa confirmation ka sii qaadanayna candle confirmation uu ku siinaa okay okay haddaan dhahno dhowr trade aan sameynaynaa aan isticmaalayna 5 minute time frame waa adkaanaysaa muuqaalkana aad ayuu u dheeraanayaa marka insha Allah next trade ayaan isla fiirinaynaa inkastoo waqtiga uu aad u badan yahay hadda tradeada badiyo hal trade kale waan isla fiirinaynaa marka raali ahaada qaabkan wax u fiirinay qaabkan wax u raacay ila eeg so instructionka aan ku siinayo raac instructionka aan ku siinayo raac instructionka aan ku siinayo raac okay next trade waa sii galay buy ayaan u sii galay so suuq wuxuu u muuqdaa mid hore u sii socon doono okay isla daawana trade-kan iyo result-iga ku dhamaado bal candle-kan wax ma celinaa ila fiiri adi ila fiiri candle-kan wax ma celinaa bal ila fiiri midda aan rabna inaan fahamno waa midaas okay that's good marka hadii la go-aan ma gaari karo still trade-kayga waqti badan ayaa ka dhiman si jawi degan ayaad ku qaadanaysaa trade-kaaga sida 1 minute oo kale maahan at least every 30 minutes sameysmaayo candle kale tartiib ayaa u sugaysaa direction-kaada fiirsanee trade-kaa gele hawshaada iska qabsanay marka okay the last trade ayuu noqon doonaa trade-kan so da trade-da badiyo waqtiga badanayo muuqaalkan uu sii dheeraanaya mar rabo muuqaalkan inuu noqdo mid lagu caajiso waxaan rabaa in uu noqdo muuqaalka mid concept laga helo wax laga fahmo muhiimadda inaad wax fahantaan ayaa taas ayaa wax walba ka muhiimsan so isku day try to do inaad sameyso isku day so kala ogow 1 minute iyo 5 minute midda ku kala fiican aniga labadoodan ku trade gareeyaa 5 minute ka aad ayuu fiican yahay 1 minute kana asana kamalid marka aad wax walba waxa ka muhiimsan gacantaada wax walba waxa ka muhiimsan gacantaada meesha ay ku fadhido aad aamini karto inaad ku trade gareyso okay
okay waxaa noo dhiman 1 minute. Let's go. 1 minute ayaa noo dhiman. Marka 5 minute-ka wuxuu dhaqdhaqaaq ugu fiican sameeyaa the last minute. Waqtiga ugu dambeeya haray ayuu candle-ka dhaqdhaqaaqiisa badanayaa. Soo ujeedaan waqtiga ugu dambeeya ayuu candle-ka dhaqdhaqaaqiisa badan oo shaqadiisa ugu badan uu qabanayaa. Hadda ujeedaan sell wuxuu ila samaystay week at least week dheer ayuu ila samaystay sell, laakiin waxaa confirmation ka qaatay this candle wuxuu ii sheegayaa suuqa inuu hore usii socon doono. Candle-kan dragonfly ayaa la reversal candleska ayuu kamid yahay. hadduu ka sameysmo buy dhexdiisa candle momentum buy dheer samaystay, hadduu dhexda ka sameysto candle-kan oo kale hore ayuu sii soconayaa waa macnaheeda. marka isku day in aad fahanto. aniga badanaa waxaa jeclahay inaan ku trade gareeyo 5 minute time frame. 5 minute time frame waa profitable haddii aad sax directionka aad u raacdo suuqa. markaad ujeedaan 18 minutes ayaga dhiman, at least 16 17 xamirona 14 13 12 11. trade-ka waxaa qaadanaysaa adigoo buluuga ku raaxaysanaya. so buluuga qofka arkaya waa nimca usoo dhow. okay this is a level. suuqa meeshaan levelkan u gudbi karo waa dhibcaha gadgaduudka ujeedaa. suuqa waa kan levelkan aad ayuu adag tahay, waa level aad momentum aad u lalaabto waayo. soo beebeenku ma marayo, marka waa lasoo celinaa sel ayaa lasoo celinaa. okay waxaan kusoo gabagabaynaynaa trade-kan. insha allah waxaan filaya inaad waxa ka fahamtay 5 minute time frame iyo 1 minute time frame differencega udhexeeyo. adiga ayaan kaa rabaa jawaabtiisa. so adiga practicay gacantaada ku probey. so wax lagu sheego waxaa ka fiican inaad gacantaada ku sameyso, inaad practicayso as a technical noo sinsaa wax walba wanaagsan. so isku day insha allah muuqaalkeena halkan ayaan kusoo gabagabaynaynaa. insha allah time frame-ka isticmaalaynay waa 5 minute. fadlan haddaa youtube-kayga daawanayso aad kamid aheen xubnaha kamid ah groupkeena telegramka ee iskaashi option traders, fadlan commentiga ugu horeeya ayuu yaalaa descriptionka groupka ama commentiga ugu horeeya ayuu yaalaa meesha kasoo dhaca groupka. insha allah haddii aad doonaysa inaad kamid noqoto groupka iskaashi option family, fadlan subscribe saar muuqaalka, sii share garey. insha allah waa inuu muuqaalka xigo. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.